kula wanaagsan 138 waddan oo qiimeyn lagu sameeyay ayay Soomaaliya gashay waddanka 136aad. Warbaahinta Global Fighter Power oo qiimeyn ku sameysa milatariga adduunka ayaa qiimeyn ay sameysay gelisay Soomaaliya waddanka 136aad. Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya dhibaato ayaa galay waddanka 136aad waxaana ka hooseeya laba waddan oo kala ah Liberia iyo Bhutan. waxaa wadamada lagu sheegay ugu wanaagsan dhanka milatariga wadamada Mareykanka, Ruushka, Faransiiska, Shiinaha iyo sidoo kale Hindiya. waxaa waddanka shanaad noqday waddanka Japan. waxaa kor isu soo qaaday waddanka Sacuudiga oo sanadihii ugu dambeeyay sameynaynin wax horumar wanaagsan ah. waddanka Sacuudiga ayaa hadda ka soo hormaray wadamada Israa'iil iyo wadamo kale. Sacuudiga ayaa horumar fiican sameeyay hase yeeshee dhanka kale waxaa soo dhac sameeyay waddanka Turkiga oo awal ku jiray kaalin wanaagsan. Turkigu wuxuu haatan ku jiraa waddanka 11aad waxaana ka horeeya Jamhuuriyadda Masar. marka loo fiiriyo dalalka Afrika waxaa ugu horeeya Masar. dalka Masar ayaa ugu horeeya dalalka Afrika wuxuu ku jiraa kaalinta 9aad. waxaa ka horeeya wadamo badan waxay ku jirtaa Masar iraahdee 10 waddan ee ugu milatariga wanaagsan wadamada caalamka. Masar ayaa horukac sameysay sanadihii ugu dambeeyay iyadoo ka hormartay wadamada Turkiga iyo wadamo kale. Soomaaliya oo iyaduna sameynaysay kor u qaadis milatari ayaan ilaa iyo hadda sameyn wax natiijo ah oo la taaban karo.